sidee muwaadinka loo gaarsiin karaa dastuurka? أنا مثلاً لو أمسي كرو إن دتك لو دوادو قاب فدرال قاب ريجنال قاب دجان دتك لو جيو أما ريبورت هان هلو جيو أما ميديا هلو مرسيو أما هلو سمايو كوميشن جدي هلو سمايو the anyway إن وعي جرين لو سمايو يعني the main point أنا مثلاً قوين خدتك وعي جرين لو سمايو muwaadiniinta waxaa loo gaarsiin karaa inay dowladda ay gacanta ku dhigto si hadda gacanta ugu hayso ay maalmahan dambe ay u hayso dib u eegista dastuurka inay wacyigelin samayso doodo qaran ay samayso ay geyso si bilaash ah tuulooyinka gobollada si bilaash ah ay u geyso muwaadinka uu akhriyo wacyigelin badan laakiin haddii la dhaho sida hadda meelo kooban oo yaallo waxa waaye hadda waxaa soo badanayo horumar badan oo hadda halka aanala joogtaan maalmihii hore nalama joogina waxa waaye iftiin aan dareemayna waaye bulshadana waxa waaye dhiirigelin ay u tahay anaga hadda maanta shalay meesha joogna berri ma joogeyn waayo waxaana soo booqday dowladdeena TV ka socdaa noo imaaday marka waxa waaye isbeddel badan oo dhacay xaamsanahay siyaabo lagu gaarsiin karo dastuurka inuu yahay maanta caalamka ku noolahay aragda ugu muhiimsan ee dadku wax lagu gaarsiiyo warbaahinta sidaas darteed anigu waxaan jecelahay in bulshada meel kasta ay joogto u heli kartaa raadi ee wax ka maqasho laakiin ma heli karto qof ama shakhsi geeya buugi oo u aqriya sidaas darteed warbaahinta iyo iclaamaadka in waxaan jeclaan lahaa laga gudbiyo mar waliba oo loo bandhigo barnaamijyo noocan oo kale ah iyo dad wadaagyo badan la qabto sidaas lagu gaarsiin karaa waan masantahay hadda xilligan waqtigan la joogo hay'adda ay qusayso waxa kula talin lahaa inay u gaarsiiso bulshada public participation ay sameynayso inay geyso oo meelaha lagu kulmaayo iyo meelaha oo bulshada ku kulmaan manaahijta lagu soo daro sidoo kale gobollada in la geeyo inkastoo oo financialki iyo security ay aad u xun yihiin oo hadda waxyaabahaas badanaa looga cabanayo dastuurka in la geeyo gobollada marka hadda waxa ugu fudud ay u sameyn karaan waa inay miidiyaasha iyo ka baahiyaan meelaha oo lagu kulmo bulshada ay ku kulanto dastuurka laga baahiyo gobollada sidoo kale meelaha fadhi ku diriiryada iyo meelaha laga baahiyo sidaas oo ugu fudud inkastoo security iyo waxyaabahaas ay carqalad ku tahay dastuurka inuu gobollada u sii baahiyo iyo financialka dhankaas caqabad badan ka jirta kaalin waxaan ka qaadan karaa dastuurka dadka inuu wacyi geliyo aan fahansiiyo waxaan ka bilaabanay dadka dariskaada dadka jaamacad kula dhigto dadka oo qaraabada kula ah saas oo soconay dadka in waxa ka fahansiis wacyi gelisay dastuurka wuxuu u sharaxday waqti ku bixis anu waxaan marka ku talin lahaa si bulshada iyo loo gaarsiiyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka in la sameeyo dood qarameedyo kala duwan iyo barnaamijyo lagu baraayo dadka waxa la yiraahdo bulshada lagu baraayo sidoo kale in lagu daro manaahijta iskoolada in maadada laga dhigo oo dadku ay bartaan sidaas la mid ah jaamacadaha kale in lagu baro jaamacadaha qaar waa lagu dhigaasan la socono laakiin in si siman oo xil ay dawladdu iska saarto gaar ahaan hay'adaha dawliga u qaabilsan dawladdu in xil badan la iska saaro oo dadka la baro dastuurka si ay u ogaadaan saameynta uu ku leeyahay iyo sida uu bari ayaga uu saameyn ugu yeelanayo oo ugu soo laabanayo saas in gobolada dhan la gaarsiiyo dadka dhan la baro dastuurka kadibna laga qayb geliyo fikradooda la dhageysto laguna daro mabaadi'da iyo fikrada ay qabaan waa runtii muhiimadda weyn waxa lagu gaarsiin karaa horta marka hore inaan dastuur aan sameysano oo dastuurkii dib yani loo hagaajiyo dibna loo fiirsado ka mid ah waxaa ka mid ah inaan dadkii dastuurka loo shaaciyo oo dadkii la fahansiiyo oo la baro wacyigelinta la qayb qaato dastuurka awoodiisa iyo powerkiisa dadkii la tuso ka mid ah waa la gaarsiin karaa dastuur haddii uu bilaabana horta meesha ugu sarreysa kasoo bilowdo kan ninka hadda nahaaya meesha ugu sarreysa kasoo bilowdo rabtuga hooseydana hadda ma u malaynaan inuu tagayo waayo wax kasta baysay leeyihin waa inay bulshada ka bilowdaan meesha ugu sarreysana ay gaaraan laakiin hadday madaxa ay kasoo bilowdaan lugahaas si lagu tagaa way adkaanaysaa oo wixii hoos ka bilowda baa kor aadi karo adigaan haddaad iska soo qaado haddaad tiraa wax kasta meesha ugu sarreysan kasoo bilaaba ma gaaraysid jaamacadda anaan kor uga soo degaa cidno makaa yeelayso mana awoodid laakiin anaka haddii dastuurkan oo ummadda markii horeba oo iyada ka bilaaba lahay oo bulshada ka bilaaba lahay
anaka wax badan waa laga duunaa lahay say hadda leeyahay laakiin koraa laloo keenay hoos waa lalagu wadaa hoos naftigeeda ani ma aaminsani inuu hoos tigi doono ma aaminsani